taariikhda sooyaalka islaamka ee Shiinaha waa cashar muhiima. Waxay caddaynaysaa in diinta islaamka aysan ku faafin xoog, balse ay ku faaftay akhlaaq iyo xikmad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Gofoga Podcast. Aniguna waa Ciid. Kusoo dhawaada mawduucina maanta taariikhda islaamka iyo dunida. Halkaas waxaan maanta ka hadli doonaa sahaminta run ahaantii iyo hoosta ka xariiqi doonaa safarkii islaamka ee Shiinaha. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu cajiibka badnaa ee taariikhda bini'aadanka iyo run ahaantii diinteennan islaamka. Marka uu Allah maanta doono iimaanka islaamka ma xanimaan buuraha, badaha ama boqortooyinka. Wuxuu Allah runaantii ku faafiya qalbiyada dadka runaantii jecel xaqa. Sidee sida roobka oo kale, islaamku wuxuu runaantii yimi Shiinaha si tartiiba, balse wuxuu runaantii beeray geedo iimaana iyo cadaalad wii runaantii midhahoogii ay maanta la goranayo. Haddaba, ka waran runaantii diin ku dhalatay lama degaanka Carabta, haddana runaantii safar dheer ku tagtay boqortooyinkii bariga fog. Runaantii taariikhdani keliya ma mid diineed kama hadlayno, ee runaantii waa cashar ku saabsan nabadda, ganacsiga iyo xiriirka bini'aadanka. Haddaba, qodobkan ugu horeeya bilowga sidee islaamku ku yimiday Shiinaha. Islaamku wuxuu runaantii Shiinaha soo gaaray qarnigii 7aad sanadkii miilaadiga 651. Xilliga khaliifadii Cuthmaan bin Affan radiyallahu canhu, waxaa la sheegay in khaliifadu u dirtay Sacad bin Waqaas, mid ka mid ah saxaabihii Nebiga sallallahu calayhi wasallam, si uu faafiyo runaantii fariinta u gaarsiiyo diinta u gaarsiiyo iyo nabadda u gaarsiiyo boqorkii Tang Gozum. Boqortooyinkan Tang waxay ahaayeen mid furan oo runaantii xiisayn jirtay waqtiga ama xilliga jirtay aqoonta xiisayn jirtay iyo diimaha cusub. Islaamku wuxuu runaantii waxay u arkayeen diin leh xushmad, cadaalad iyo isku tanaasul. Haddaba, ganacsadooyinka Carabta iyo Faransiiskii kuwa oo runaantii lahaa safaro si ku tagi jiray waddooyinkii waaweynaa ee taariikhda sida Silk Route, halkaas oo runaantii ay ka dhisi jireen runaantii waddooyin waaweyn ku ay mari jireen. Haddaba, waxay dhiseen ganacsadayaashii Carabta ahaa masaajido yaryar oo runaantii noqday xarunta iftiinka diimaha. Haddaba, islaamku wuxuu yimid Shiinaha isaga oo seef runaantii wadan, balse runaantii yimiday isaga oo runaantii wada salaam, nabad iyo ganacsi runaantii wadaaga. Haddaba, nabaddu ayaa ahayd furaha iyo gooldhiga iimaanka ayaa runaantii ay dhammaan wada qaateen qaabka ay ula dhaqmayeen, tacaamulka ula dhaqmayeen. Haddaba, qodobkiina labaad, dhaqanka islaamku suu la qabsaday dhaqankii Shiinaha. Qarnigii runaantii 9aad isdeedaad, muslimka runaantii Shiinaha ah waxa ay bilaabeen inay la qabsataan dhaqanka iyo dhaqankii islaamkii iyo dhaqankii maxalliga ayaa runaantii la qabsaday. Waxaa runaantii wixii loo yaqaanay Sinisiib. Waxay runaantii bareen islaamka iyo falsafada Confucius. Labada runaantii wadood oo runaantii akhlaaq iyo xushmad iyo cadaalada. Haddaba, waxaad arki doontaa haddaad Shiinaha tagtid dhammaan aasaarta ka hareen masaajidda ugu waaweynaa ee Shiinaha sida Xi'an Great Mosque, masaajidda ugu waaweyn ee Shiinaha ku yaala, ayaa runaantii tusaale nool u ah. Naqshadaynta waa Shiineys, laakiin ruuxda iyo gudihiisu waa Islaam. Qur'aanka ayaa runaantii lagu tarjumay luqado badan si ay runaantii dadka maxalliga waddanka degan ama boqortooyinka deganaa ay u fahmaan fariinta runaantii cad ee wado runaantii islaamka nabadda. Haddaba, islaamku wuxuu la jaanqaaday dhaqankii, balse weli runaantii ma una lumin nafirkiisii. Wuxuu noqday runaantii sida ubaxa Shiinaha oo runaantii ka koray ciddii. Haddaba, qodobkiina saddexaad, islaamka maanta Shiinaha siduu yahay.
maanta waxaa lagu qiyaasaa islaamka muslimiinta Shiinaha in ay u dhexeeyaan 30 ilaa iyo 80 milyan. qabiilooyinka run ahaantii lagu yaqaano ee caan ku ah muslimiin islaamka waa Hu, Ugur iyo Salar ayaa run ahaantii ku ugu waaweyna. Waxay ku nool yihiin gobollada Minchis, Kansus iyo Xingu. Inkastoo ay run ahaantii jiraan caqabado siyaasadeed iyo xanibaad, hadda muslimiintu waxa ay weli run ahaantii ilaalinayaan diintooda, cibaadadooda iyo run ahaantii xiriirkooda. Haddaba haddaad ka fahanaynta ummadda muslimiinta run ahaantii waxay noqdeen mid run ahaantii iskaashata oo run ahaantii ka dhex muuqata. Taariikhda Islaamka ee Shiinaha waa cashar run ahaantii laga barto dulqaadka, waa caddayn run ahaantii in diinta Islaamka aysan ku faafin balse ay ku faaftay akhlaaq iyo xikmad. Haddaba waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduuciina maanta. Islaamka Shiinaha waa geed run ahaantii ku beernay run ahaantii bariga dhexe fog, laakiin xididaysay oo ku xidhiidha Qur'aanka iyo laantiisu run ahaantii ay cadaalad tahay. Muslimiinta Shiinaha maanta waxa run ahaantii waa markhaati nool oo muujinaya in sida diinta Islaamku ay ugu faaftay karto nabadda, ganacsiga iyo aqoonta. Meel kasta oo run ahaantii Islaamku uu tago wuxuu dhisaa run ahaantii quluub wanaagsan. Ma burburiyo bulshada, laakiin wuxuu dhisaa horumar. Wuxuu run ahaantii keenaa iftiin iyo iibaan. Ma keeno wuxuu keenaa run ahaantii mana keeno muslimiintu waa fiican mugdi iyo xumaan. Haddaba waa mahadsantihiin sida fiican u dhegeysateen. Run ahaantii aad ay u mahadsantihiin barnaamijkeen run ahaantii codka taariikhda Islaamka. Ha iloobin inaad run ahaantii la wadaagto run ahaantii walaalahaaga kale. Run ahaantii waxaan rajaynaynaa Allah inuu run ahaantii nagu hanuuniyo runta, nabadda iyo fahamka taariikhda Islaamka.